intaas kadib runtii warqadda soo baxday oo ku saxiixan yahay ra'iisul ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la faraya xubnaha golaha wasiirada in laga mamnuucay in isticmaalaan social media oo adeegsadaan runtii go'aankaas horta go'aan aan soo dhaweynay ayuu runtii ahaa laakiin waxaa la ka sii darneyd markii go'aankii xukuumadda ay soo saartay haddana wareegtadii loo adeegsaday media hada ay nafteeda waxay tahay mushkilad kale sababtoo ah warqadda waxay ku socotaa oo ujeedadeedu ay tahay amar la siinayo xubnaha golaha wasiirada ogeysiisna waxaa ku leh madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha marka sabab maaragtay media loola wadaago iyo idaacado iyo banaanka loo keeno lafteeda waxay tahay weli dowladnimadii protocolkeeda wax badan ka qariban yihiin marka qalad in lagu saxo waa laga fiican yahay waxay tahay xubnaha golaha wasiirada markii shirarka la isugu yeerayo iyo ajandooyin markii la rabo in lagala hadlo